السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سو دوادا كسو دوادا هرمر مطبخاga janal asxaabta meel kasta kala joogtaan iyo xilli kasta ay idin tahay waxaan idin leeyahay ma waqtigu haydin wacnaado bismillaahi kariim aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadka subscribe kuwii hore noola joogay ee hore u subscribe gareeyay iyo dhammaan dadka kale ee imika nagu cusub oo aan leenahay soo dhawaada subscribe siiyay channelka barakallahu fiikum wajazaakum allahu khayr ayaan idin leeyahay maanta maxaynu haynaa bariyahan dee quraac bay nooga shidan tahay quraac baynu haysanaa waa beed omelet sanaan loo sameeyo aad buu u fudud yahay waa ku dhufo ka dhaqaaq insha allahu tacaala xagga wax la saarsaarayna iyo qaabka loo sharaxayna qof walba wax weeyaan dee sidii isugu jeclaado marka insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysan doono oo aan maxay heeday insha Allah in anfici doono kaas sidiisa lagu cunayaa ma aha mid roodi iyo waxaas lagu dhex daraayo waa quraac sideeda saytuun yar oo saytuun olive yani ayaad raacin kartaa waxaad raacin kartaa maxay heeday the fruit ila burtuqaal iyo muus iyo waxaad jarjartay kafeegi ama shaaha qofka sida uu jecel yahay wixii de mashruubaadaha qof kasta uu xiiseynayo ayuu raacin doonaa de insha Allah ka faa'iideysi wacan xabaabi halkan waxa inoo yaala ama aynu ku haysanaa xabad basal oo yar roon oo aan soo duuduubay xabad xabuuba oo sidoo kale iyadana aan soo duuduubay dhexdana aan ka saaray dhexda yani qoyaanka midhaha iyo waxa gudaha kaga jira ayaan ka saaro oo intii diirkii iyo jiirkii raay sare xabad barbarooniya midh qajiya intabihu yani qajiga markaad jarjaranaysan beed iyo quraacyo waxa ku darsanaysan inuu xoog u kulliyahay in kale oo inaad iska eegtaan oo iska hubisaan way waxa jira qaji xabad yar oo naqan oo sleedahay waxba ma kululeynayso oo markaad dherigi ku darto aad kaaga fasaadinayso kuleel badan ku sameynaysa halkan waxa ku jira boqsamaad baa ku jira ama roodhida shiidan qofkii dukaamada ka soo iibsaday qofkii kale ee wadankeena jooga markaan roodhi shiidan ag oolin roodhida caadiga dhaadheer buu ayuu cadceeda u dhigayaa ama qalajinayaa markuu qalajiyo mooyahani caadiga ah buu ku tumayaa wuu shaandheynayaa hadduu doonayo milix yar iyo filfil yar iyo khamuun isku ridqay ama isku shiiday ayuu ku walaaqayaa hadduu sideeda ku isticmaalaya marka anigu tan waxaan kasoo iibiyey biimka ayaan kasoo iibiyey waa tan noocaas aan isticmaalay biimka ay taalaa waxay taalaa kale bir sifir bir bay taalaa tan waa tii xawaashka lahayd oo yani filfil iyo barbarooni la qalajiliyay toon yar iyo waxbay leedahay xawaashkii leedahay tug kale oo aan xawaashba lahaynna way taalaayo iyada keera jaban labaduba isku waxbay ku qabanayaan waana isku roodhi laakiin midna de xawaashkii baa lagu daro weera urtay ku kala yarduway midna waa saafiyo de roodhidii khaliya weeyaan markaas sidaas ula socda tanna wax weyn caano iyo halka yar noogu jira yar caano muqaacad caano ah kana filfil yar iyo khamuun yar isku soo riqay baa ku jirta halkan waxa noogu jira 4 xabadood oo beeda marka horeysaba waxaan sameyn doonaa beedka ayaynu qasi doonaa beedka ayaan maxay ku qasayaa madrabka yar oo gacanta ama bahalka yar ee lagu qaso beedka yaani caadiga oo garana madrabka kan waa luqad carabiya sumaha waxaan ku dari doonaa in yar waxba ahayn oo milax ah waxa kale oo ku dari doonaa caanihii waxaan ku dari doonaa kale insha Allah boqsamaadkii ama roodhidii shiidneed waxaan ku dari doonaa kale insha Allah in yar oo xawaashkii ah filfil iyo khamuun yar weeyaan qof filfil kaliya ku kaaftoomaya ama khamuun kaliya iyadana waa jaais weeyaan intaas ayaan maxay isku garaacayaa oo aan isdhex gelinayaa si fiican maqligii baan dabka soo saaranay waxaan ku shubaynaa 2 muqaacadood ilaa 3 muqaacadood oo saliida olive iyo saliid macsar iyo saliid caday iyo saliid alla saliida aad rabto ayaad isticmaali kartaa halka markaan marinayno insha Allah waxaan ku dareynaa basasha si ay noogu yara shawaxdo basasha markaas
ma doonayno in qudradu inaga dhimato ama ay xoog isugu saxsaaxido sidii shukushukaha oo kale in yar un baan doonayaa inaan ku rogtogo oon sidaa ku yar idhaahdo asxaabi wanigaas beedkii ku shubaayo markan saasaan ugu yar warwareejinayaa sidaas waaye maasha allah saa markaan ugu shubnay waxaan sameynaynaa maqliga daboolka ayaan yar saarayaa si uu yar furo dabkana aad baan uga naaqusayaa waybi markii aan bahalkii inoo noqday xagga hoose isla furkii ku daboolnaa maqliga ayuun baan ku soo gediyey haddana dhinaca kalean u rogay wakaas si uu dhinaca kalena inoogu casaado intaas dhinacan uu ka casaaday furkii aan ku daboolay un baan ku rogay markaa furkaan iska soo yarmaydha waayo beedkii qoyanaa baa marmaray hadda uma baahnin dabool iyo waxa inaynu saarno sidaa markuu dhinaca kalena inooga soo casaado oo saa qurux badan oo kale inoo soo noqdo xagga hoosena ayaan bilaadhkii kusoo ridaynaa insha allah asxaabay umladkeenii ama beedkii aan sameynaynay saas ayuu inoogu soo baxay maasha allah saasunu inoogu dhan yahay insha allah waxaan rajeynayaa inaa laga faa'iidaystay biidni illaahi kariim markii aan bilaadhka kusoo riday in yar waxaan u jarjaray sida metal keeg oo kale ayaan u jarjaray markaa sababtan u jarjaray waxa weeyaan dee kan inta badan sidiisaa lagu cunaa wax laguma dhex darsado sidiisaasaa lagu cunaa inta badan saas buu yahay markaas oo lagu cunayaa markaas saasaanan maxayda ugu sameynin ayaan isagoo ballaaran meesha ugu soo ridin ee aan usoo jarjaray marka quraacdii saas ay noogu dhan tahay insha allah waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iidaysanay aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa dhammaan inta maxayda ku xidhan channelka insha allah waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan iyo xilli kastoo ay idin tahayba khayr iyo barwaaqo iyo nimco ilaahay idinku waarsiiyo waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah iyo casharo dambe oo xiiso badan